haddaba gabdhaha kubadda cagta ee Golden Galley ayaa muddo 10 bilood tababar adag ku qaadanaya caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayagoo u diyaar garoobaya tartanka kubadda cagta ee gabdhaha ee lagu qaban doono caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Gudoomiyaha kooxda kubadda cagta ee hablaha Sheema Salaal Maxamed ayaa sharaxaad ka bixisay waqtiga dheeraa ay soo qaateen gabdhaha kubadda cagta ee Golden Galley iyo rajada ay markaa ay ka leeyihiin in ay higsiga ugu dambeeyay ay ka gaaraan xifradooda kubadda cagta. Magacaygu waa Sheema Salaal, waxaan ahay gudoomiyaha Golden Galley oo gabdhaha ku dhiirigeliyay ciyaartooyda especially kubadda cagta. aad iyo aad waxa ugu faraxsanahay in ay jiraan gabdho badan oo ciyaaraha kubadda cagta oo jecel laakiin cidna ku dhiirigelinin. aad iyo aad waxa ugu faraxsanahay inaan ka ahaado qofta koowaad oo kubadda cagta kooxda koowaad sameysay kubadda cagta Muqdisho Soomaaliya. waa shaqo adag marka loo eego xilka gudoomiyenimo iyo in dhalinyartan oo isku keeno ma jiraan cid garab kugu siisay oo kugu taakuleynayso kale inaad intan oo habla ah iyo in ka badan baa isku keento. way jiraan waxaa jiro gudoomiyaha oo Sahro oo igu dhiirigeliyay inaan heerkan amaanta jooga gaaro iyo waalidkaygi aad ugu mahadcelinayaa. waxaan ugu qaadatay waqti badan struggle badan challenge badan soo marnay waana alxamdulillah maanta marka heerkan aan joogno waxaan filaynaa inaan heer si dheer aan gaarno. waxay gabdhahan degmooyin kala duwan ay ka yimaadaan waqti ay u soo huraan ma jiraan qorshe kale aad u qorsheysan oo kale inaad macnaha waxyaalo badan aad ka caawisaan. waxyaalo badan jira horta gabdhaha inta jooga waxay u badan yihiin vulnerable waaye waa gabdho oo banooniga jecel oo laakiin oo qof ku dhiirigelinin maanta waxaan hamiga meeshaan aan keen halkan ku imaadeen waxay tahay inay ka qayb galaan rabaan World Cup-ka inay noqdaan gabdhaha oo maanta Soomaaliya oo magac u istaagayo inay noqdaan. waxaan kaloo ku dhiirigelin lahaa gabdhaha oo jecel qof walba choice ay leedahay kuwa kubadda cagta jecelna open u nahay diyaar u nahay halkan inay imaadaan waa soo dhaweynaynaa. dhinaca kale gudoomiyaha ururka rajo soo celinta Soomaaliyeed ee marka magaciisa la soo gaado loo yaqaan Sahra Maxamed Shariif Aadan ayaa dhinaciisa sheegay in waqti dheer ay ku soo qaadatay in la helo gabdho ku xamaalanaya xifradda kubadda cagta maadaama sanadii ugu dambeeyay hablaha Soomaaliyeed ay si weyn kaga dhex muuqdeen sida tartamada handballka iyo basketballka. run ahaantii waxaan u istaagnaa inaan ahay gudoomiyaha ururka rajo soo celinta Soomaaliyeed ee Sahra waxaan diyaar u nahay inaan halkan joogno meel ka sii dheer inaan gaarsiino. waxa weeyaan bilow ma ahan sanad badan ayaan soo shaqeynay halka wiilashana waan meel fiican ma gaarnay waa markii ugu horeysay gabdho Soomaaliyeed kubadda cagta ciyaarayaan. run ahaantii waxaan ugu dhaliyay ma aragnay rabitaankooda iyo halkay jecel inay ka gaaraan gabdhaha Soomaaliyeed. waxaan aaminsanahay gabdhaha Soomaaliyeed waa awood qarsoon haddii dib banaanka loo soo saarno waxaan aaminsanahay guulo badan inay gaarsiin doonaan kubadda cagta waayo gabdhaha dunida kale kama awood badna kama xirfad badna kaliya waxa kaliya qarsoon awoodooda qarsoon waxa lagu soo saar karo waxa juhdi badan la geliyo waqti in lagu bixiyo la dhiirigeliyo waayo waxaanan la soo saaran mirahada lama qoranayo waayo markaan arkay waxa isu dhiirigeliyo waxa inaan barnaamijkan sameeyno maraan tagay wadamada dariska arag gabdhaha saakooda Soomaali ciyaaray markaan arkay gabdhaheena muddo hal sano ciyaarayaan waxaan arkay inay ka xirfad badan yihiin waliba ka dadaal badan yihiin way gaari karaan guulo badan soo hoy karaan waliba ay matalan karaan qaran waxa su'aalo ay gabdhihii ka horeeyay basketball ciyaarayay way aragtay guulo badan bay keeneen maxaa diiday gabdhaha Soomaaliyeed kubadda cagta inay ciyaaraan guulo ay keenaan yes way keeni karaan waan awoodnaa way maanta waa ujeedaa muddo hal sano ayaan soo wadnay barnaamijkan meel fiican maraya waxaan rabnaa ilaa inaan naadiyo ilaa 4 naadi inaan sameeyno hadda waa 2 naadi waxaan sameeynay waxaan u soconaa halkaas direction-keena waa halkaan u soconaa waa halka waxaan aaminsanahay wadadu way dheer tahay laakiin guushuna way dhowdahay waana gaari doonaa.